بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رمضان كريم دمان برشاد الصوماليات مeel kasta joogto wadan gudihiisa dibadiisaba waxaan leeyahay Ramadan Kareem وكل عام وانتم بخير waxaan rajeynaa yani ramadaankiisa kale inay ku gaartaan nabad baraare iyo insha Allah taala caafimaad sida joogtada ahaan jirtay mawduuceenan ama barnaamijkeena waa barnaamijka ramadaanka caafimaadka iyo cuntada oo aan sanadka sameeyno insha Allah waxaan sanadkan idin rajeynaa insha Allah inaad yani aad maxayto ku dhamaysataan caafimaad iyo baraare insha Allah barnaamijkan waa barnaamij wacyigelin ah wuxuuna ku wajahan yahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee saa'imiinta ah yani inay wacyigelin ahaan u qaataan sidee yani maxayto arrimaha caafimaadka iyo cuntada oo xilliga ramadaanka si ay yani u gutaan yani ramadaankooda ay ugu gutaan si caafimaad buuxda lana una dhameystaan insha Allah ayagoo si farxad iyo caafimaad leh yani saasay ku wajahan tahay marka haddaanu guudo galno maxayto ramadaanka waa bil maxayto ma sha Allah oo Ilaahay ba quraankiisa noogu sheego bil khayr badan leh oo bil yani waxyaabo badan oo maxayto baraka wadata waa yani bisha ramadaan waa bil caafimaad buuxa wadata maxayto waana bil Ilaahay dadka muslimiinta ugu maneystay meel kasta ay joogaan marka bishan maxayto ramadaanka waxaanu rabnaa hadduu alla yiraahdo in aad yani mawduucan joogto noqon doono aad la socon doontaan biidhnillaahi tacaala waxaa loo baahan yahay bisha ramadaan bacdama ay bilow tahay bilaabatay ka horna waa la sameeyaa maalmaha ugu horeeyana waa muhiim in lala xiriiro oo maxayto dadka waliba qaba cudurrada kala duwan inay la xiriiraan maxayto dhakhaatiirtooda si talooyin loo siiyo yani dadka cudurrada kala duwan qaba gaar ahaan waxaan sheegi karnaa maxayto cudurrada sida maxayto cudurrada dhiig karka oo kale cudurrada kaadi sokorka ama kaadi macaanka cudurrada gastritis-ka dadka kaliyaha ka jiran maxayto dadka cudurrada kala duwan qaba si ay yani talo consultation la tashi ula yeeshaan yani dhakhaatiirtooda ama dhakhtarkooda si markaa yani wixii marka loo baahan yahay in yani daawadii bacdama xilliga isbedelayo waxaa loo baahan yahay marka in daawadii dosagekeedii iyo waqtigeedii waa isbedelaya saas awgeed marka waxaa loo baahan yahay in la sameeyo isbedelkaas inuu dhakhtarkii sameeyo oo xilligii 3 jeer dil la qaadan jiray marka 2 jeer bay imaanaysaa marka yani in marka yani dhakhtarkii uu siiyo macaarifta taladaas ay la xiriiraan soonka intuusan bilaaban ama intuu bilow yahayba inay la xiriiraan si marka ay ugu hagaagto yani aysan u galin daawadii inay maxayto qalad uusan ku imaanin qaadashadeedii iyo dosagekeedii taas horta waa aad iyo aad muhiim u tahay midaan rabo marka haddaan galno mawduuca bishan saa ogtihiin 11 bilood ayaa waxaa dhacaysay maxayto cunto badan caloosha lagu soo ridaayay oo cuntadii marka calooshii ay qabatintay waqti ahaanna yani caadiyan waqtigii qaadan jirtay cuntadana ay tabayso muggii ay qaadan jirtay calooshana capacity-geedina ay dareemayso marka yani waxaa dhacaysa in maalmaha ugu horeeyo dhan ama 10 maalmood ugu horeyso in yani uu dareen xoogan oo dhanka waliba gaajada ah ama dareenka gaajada ama calool gubasho oo calooshii eber ah yani xilligii cuntada la qaadan jiray ama sida duurkii oo kale ahayd ama maxayto barqadii oo kale in calooshii ay dareemayso markaan calool gubasho ay imaanayso oo aanan ahayn gastritis-ka dhabta ahaa laakiin calooshii oo maaragtay dareemayso muggii ama yani xamuulkii ama yani quantity ama tiradii ay qaadi jirtay oo ka maran calooshii xilliyadaas iyo waqtigii
gaar ahaan weliba waxa ugu sii daran baa la yidhaahdaa xilliga yani waqtiga muxuu ahayto qofka muxuu ahayto saa'imka uu ama raashin uriyo ama muxuu ahayto arko ama muxuu ahayto maxaa la yidhaahdaa yani inta ugu daran waa aragaas iyo muxuu ahayto iyo urinta waxa weeye tan kale de dhedhemis maba jiri karaba marka yani aad iyo aad waxaa dhacaya gastric secretion badan baa la soo saaraya caloosha dhacankeedii halkaasna waxaa imaanaya maaragtay caloosha eber ah yani inuu aad u dareemaya qofka calool gubasho marka maalmaha ugu horeeyo bacdamaa caloosha qaabkaas 11 bilood ay ku soo socotay waxaa dhacaya inuu maalmaha horeeyo aad iyo aad dareenkaas yani uu yeesho ama yani aad u dareemo caloosha saa marka yani maalmaha ugu horeeyo waxaanu aragnaa dad badan oo noogu yimaada ama isbitaalka noogu yimaado iyagoo dabcan ka cabanayo hadhow baan ka sheekayn doonaa cuduradaas yani cuduradan caloosha weliba ku dhaco sida muxuu ahayto gastritis wax la midka ah marka ama dheefshiidka xoogaa dhibaatay ku arkaan marka taas waxyaabaha ugu wacnaanaysa waxa waaye markii la gaaro muxuu ahayto maqribkii waxaa loo baahan yahay qofka saa'imka ah bacdamaa gaajo badan iyo oon badan uu hayo gaar ahaan maalmaha ugu horeeyo inuusan cunto badan ku bilaaban biyo badan inuusan ku bilaabanin inuusan yacni gaajada uu dareemaya aysan ka xog badinin oo iyo haraadka haya markaas inuu ku dhex dhaco cunto badan iyo hilib badan iyo cunto shiilan iyo sambuus badan iyo bajiye iyo waxyaabaha mamacaan iyo waxaasoo dhan hadhow waa wax dhibaato keeni karaya marka looma baahna yani in lagu bilowdo maxaa loo baahan yahay marka waxaa loo baahan yahay kow markii afurkii la gaaro qofkii inuu qaato muxuu ahayto sida sunnadan ku soo aroortay timirta inuu qaato 3 xabo timir ah koob biyo ama koob oo yani orange fruits ah ama fruits ah inuu cabo kadibna inuu isticmaalo ama qaato waxa la yiraahdo suubkan oo ka samaysan weliba gaar ahaan yani qudaarta ka samaysan ama Soomaalida yani waxay u isticmaalaan boorshkan maraqa lagu daray oo yar inuu muxuu ahayto isticmaalo marka suubkaas weliba qudaarta ka samaysan ama noocan kale ka samaysan chickenka ayuu isticmaali karaa maraq ahaan u isticmaali karaa kadib wuxuu la sugayaa in yar ayuu sugayaa 10 daqiiqo ah marka kadib yani wuxuu qaadanayaa muxuu ahayto cuntadii caadiga ahayd oo dheelitirneed cuntadaas dheelitiran oo noqon karayso maaragtay wax yaro bariis ama cad yaro xogaa yaro baasta ama oo la socdaan muxuu ahayto cadkii muxuu ahayto bisteekiga ama malaay ama chicken waxaa muhiim ayadana qudaarta kala duwan oo aad iyo aad muhiim u ah oo weliba waxyaabo badan xambaarsan midda kale oo muhiimka ayadana waa fruitska ama muxuu ahayto miraha oo fruitska ah sida muxuu ahayto babayga cambaha iyo wixii la mid ah ayuu qaadanaya kadib yani uu dhaqaaqayaa wuxuu samaynayaa socod yar ama wuxuu aadayaa taraawiixdii halka aadayaa marka taraawiixdana muhiimadda gaarka oo leedahay hadhow ka hadli doonaa waxay taraysaa marka cuntadaas xoogaa uu qaatay caloosha ah calooshu kiilay ayay waxay u noqonaysaa inuu gubo exercise waa xag rabbaani oo cilmi ah qaybtan marka oo muxuu ahayto afurka maanta yani waxa waaye waxa intaasan ku reebaynaa waxaan idin rajaynayaa insha Allah taala Ramadan Kareem soon wanaagsan hada wabillahi tawfiiq mawduucina kale ayaan uga hadli doonaa muxuu ahayto qaybta kale ee saxuurta iyo raashinka loo baahan yahay in la qaato iyo waxyaabihii imaan karaya oo qofka yani la soo gudboonaan karayo muxuu ahayto inta uu ku jiro Ramadaanka wabillahi tawfiiq sallallahu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh